السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، qof kasta oo muslima walaalkay wala shay oo muuqaalkan arkay fariintan waxaan ka baryayaa inuu sii gudbiyo oo qofka kale uu sii gudbiyo muslimiinta dhan sidii ay u gaarto walaalayaal. waa fariin muhiima walaalayaal. qofka gudbiyo Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu fitanka adduun, midka qabriga, midka cadaabka iyo midka qiyaamada Ilaahay inuu ka badbaadiyo isaga iyo waalidkiisa iyo ubadkiisa, inuu Ilaahay ugu dambi dhaafo uguna naxariisto. sii gudbiyo walaalayaal, waa fariin aad u muhiima, wanaaga la gudbiyo walaalayaal. Anabi ibn Abbas ayaa wuxuu yiri jannada waxaa ku sugan xuralayn magaceeda la yiraahdo lucba. xuralayn la yiraahdo magaceeda lucba. xuralayntaas wuxuu yiri law basaqat fil bahri, haday badda haday candhuuf ku tufto la cadba ma al bahri kullahu yiri. biyaha badda dhan waxay isku bedelayaan macaan walaalayaal. wuxuu yiri maktuub ala nahriha, qorteeda waxaa ku qoran man habba an yakuna lahu mithli, qofka doonaya inuu anigoo kale helo falyamal bidaa'ati llahi azza wa jal. ilaahay daacadiisa ku dadaalo walaalayaal. walaalkayga muuminka aho iyo walaasheeda muuminada ahay, qofka caaqilka ah oo caqligiisu shaqaynayo meesha la rabo inuu shaqaysto waqtigiisa inta badan uu geliyo oo meeshaas walaalay meesha la doonayaa. waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta dhamaantood, rag iyo dumar ba khayrka jecel, waan ogahay inaad khayrka jeceshihiin walaalaha muslimiinta dhamaantii, inaad khayrka aan leedin tilmaamayna jeceshiin waan ogahay. qofkii fariintan gudbiya Ilaaha subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa inuu fitanka qabriga, midka qiyaamada iyo midka qabriga iyo midka qiyaamada iyo midka adduunba Ilaahay inuu ka badbaadiyo isaga iyo waalidkiisa ubadkiisa Ilaahay inuu naxariisto ayaan Ilaahay uga baryayaa. walaalayaal sii gudbiya, khayrka aan ka shaqeyno, dacwada inaan ka shaqeyno, taas balan hayno ahaato, aan ku dadaalo inaan dacwada ka shaqeyno.